السلام عليكم وأنا أحمد موسى وقيبتي البعض لاندسكيب كان سميني لو بالي ستايل كها وحاسبيننا جيدو شلا ماشان أو كنت أجني مركان كسي ودنا دينا عن كرة إيماننا هالمر وحاسك حيرنا دول كان كدبنا رايت كليك عندنا كدبنا حاسبيننا كولكشن عصب وهم بيحنينا جيدو هذا همر تابنو شيفت سي كورسدنا نو إيمانه سو تحدي نو إيمانه ماشا الدون كده حبرتمي نو إيمانه وحقوقنا سميننا واحد تهمر عن كفيري لمبر هل dhinacan kore imaanaynaa kadibna waxaan qaadanaynaa kown kadibna kownka uma eka geed marka hore laakiin waxaan rabnaa inaan sameyno waxaan ka bilaabaynaa geedahan oo kale aan ka bilaabaynaa kuwana fudud so waxaan siinaynaa afar waxaan siinaynaa juhu so marka bis waan ka dhameynay so kana iska laabno kadib number halkiin aan ku laabanaynaa waxaan aadaynaa edit mode-ka hadaa fiirsid geedkan waa yacni waa wax male oo detail male yacni aan leleexii karno sida kan oo kale hadda kan oo kale wuxuu leeyahay meel detail oo kale kanaan leleexii karnaa laakiin kan male sidee ugu sameyn karnaa marka haddaa u baahanta inaad samaysid wax control r ma dhihi karno uuna diidaa waxaan siaan dhibcuuna siinaa marka intaa control r dhibic qaada lahayn control r dhibic kala qaada lahayn maanta inuu wax badbedeli lahayn waxaa ka fiican inaan hamar dhinacan imaano aan taabano ka wuxuuna siinaa mindeer kadibna waan jaraynaa sana oo jaraynaa mar intaan dhahaa ogaw jihadan ka fiirin bis uu ka jara dhinacan kale kama jarayo soo marka sideen u hagaajin karnaa hadaan ku laabno lambar halkiina jihadiina koowaad waxaad taabanaynaa mar imaan dhinacan x-ray-ga imaanayna haddaa x-ray maadid aad jirtid wax macnuu sameynayo male weli sidii dhibaato fi haysanaa soo aan kusoo laabana lambar halkiina waxaan taabanaynaa ka kadibna c waxaan taabtay c aan taabtay kadibna waan jaraynaa sidaan dana mid kale haddana mid kale oo afraad marka haddaan geeskan ka fiirino hal mar wax kastoo hadda meel kastoo ka jiran yahay haddaan kusoo laabano lambar halkiina aan taabano x-ray kuwana wax yarsan u jiidina marka laakiin scale proportionalka haddii kuu furan yahay haddana kanna wax yarsan u qaloocinina بس هذا جيت كينو غوري واسمعني كين لبعض سمينو كنترول همر كرسي ده نهاية جينا المرة ما هداني معنا روتيشن كما تقارن عربنا إن بال كان جيدون أحدو وكوري جنا وحرمنا إنه هل كان وسكوري جاربنا مجتاي هداني معنا دينا عن كوري أوريجينال كما شكو قرنت هاي أنا هوس ودينا المر أمبرتاس هوس كدينو أنا سكحرنا مر لبعض عندنا هذا روتي هذا دهنو هوس زكوري جنا هلو طلعنا عويد دون تاد واحد بدن أميكو لكن هلو طلوا سايد نوع عويد دون أمريكان أرمن إنان لوك دينو هلو طلوا حاستعمال دون بالكر ماجنت كدبنا حديد دون فيس كدبنا جي مركان دهنا بو وعقول جي دون دينا عمد خان دبيع ذو وكل جي دون لولك وعسكول جي دون جيت كسكول جي دون أنا كم واحد بدن سمعينين سو أمريكا أوبجيت كستو waxaan isku daynaa inaan baasha hoos ka dhigno okay nice marka control click aan meeshaan dhahaynaa agtiisa kadibna waxaan qaadanaynaa kown kale laakiin kownkan waxaan u baahanaa inuu lahaado 3 kadibna waan yareynaynaa dhinaca z waxaan taabtay s z aan taabtay kadibna waxaan aadaynaa edit mode kadibna shift d koraan jiidno alt d kama shaqeysa haddaa ku jirto edit mode ogaaw so shift d bisa la isticmaali karaa kadibna mid saddexaad kale kadibna rotation kan imaanaynaa wax yaraan kala leexinaynaa haddaa maqloosin sacbis igaraan noqda iyo musiig sababtoo waxaa joogaa library-gan joogaa ama maktabadda marka dadaa meesha xaflad ku qabanoyna so kana geedkiina ugu horeeyey haddaan soo galno edit mode-ka haddaan dhahno kadib koraan u jiidinaa marka ogaaw meesheenii oo laga wareejinayay halkaasay weli tahay weli ma raacin haddaa ku jirto edit mode-ka baalkan meel kala geysid arbid inaad wareejisid bartaasuu ka wareejinaa laakiin adigoo ku jirtid object mode haddaad qaadid raacay dhibicda yaroo oranjiga ah laakiin haddaa ku jirto edit mode-ka ma raacayso so edit mode halka ku jirnaa kor u qaadaynaa haddana control a waxaan qaadan doonaa kown oo leh 5 geesood oo haata
waxaan ka dhigaa eber dhibic labo ama eber dhibic hal. so haddaan taabto kownka amar hoostaan taabanaa inuu x-ray ku jiro, waxaan taabanaa s scale, waxaa weyn hoos wax yar ka weynaado. so geedka koowaad waan sameynay, laakiin amar waxaan sameynaynaa inaan taabano kownkan, aan taabanaynaa kan kore, kadibna waxaan taabanaynaa command J ama control G hadday isticmaalo sid window. laakiin waa in hagaajinaa meesha pivotkan ii sheegaya hadaaya. edit mode aan geli karnaa haddadaan a, kadibna koraan ku qaadayna sidaan. intaa meeshaan imaanay inta ka bedeli lahayn edit mode-kaa la qaatayna maadaama uu ka fudud yahay. geedka saddexaad waxaan dhahaynaa shift D aan dhahaynaa, kadibna x kan u jiidinaa, kan laftirkiisaan wax ka bedbedelaynaa. maraan soo galo wireframe-ka hoosaan u dhigaynaa, kan waan gaabinaynaa, kadibna inaan mid kor imaano aan taabanaynaa L, kadibna waxaan isticmaalaynaa rotate, kala jiidinaynaa hal mar sidaan, kan L aan taabanaynaa kor aadno, kadibna wax yar aan ka jiidino. hoostiisana kan waan yarey karnaa so maadaama inuu yar yahay si loogu maleeyo. iyo mid saddexaad aan sameynaynaa, kanaan ka koobiyeynaynaa shift D x, kadibna edit mode. kan halka waxaan sameynayna waxay tahay control R aan dhahaynaa, kadibna dhexda aan siinaynaa 2 xabo, kadibna kan dhexe anagoo ka fiirinayna wireframe. intaa dhinaca meeshaan kor imaan lahayn mataqaana maadana wireframe, solid iyo renderka imaan lahayn, waxaad taaban kartaa Z, kadibna meesha u baahantaa u leexanay. inta waa solid, wire, render, saas sayda ugu fududahay. so wax yaraan hoos u dhigaa, wax yaraan qaloocinaa so si loo malayo geed yani duq oo kale ah. dhirirkiisana waan dheerey karnaa si uu kuwa kale ugu dheeraado, kadibna rotate yarisaan siiyey. geedka saddexaadna waan dhameynay. waxaan sameynaynaa geedka afraad aan sameynaynaa oo geedkan wax loo malay inuu yahay complex, laakiin kan ugu fudud waaye. haddaan dhaho shift click meeshaan kursidan halkaan aan keenaynaa hal mar, kadibna waxaan dhahaynaa add, kadibna waxaan dhahaynaa add icosphere. icosphere waa waxaan rabnaa inuu noqdo geedka korkiisa. haddana shift D, mid kale S, Z korkoraan u jiidanaa, haddana shift D mid kaloo side ugu sii weyn oo ku dhex jiro oo qabsanayo almost. so wax yaraan kala jiidiyey. so waxaa noo dhiman inaan sameyno geedka hoostiisa, kadibna control ayaan taaban kartaa ama korkana imaan kartaa. so control ayaan taabanaa waa shortcut, kadibna cylinderkiina weli noo sii hayaa, waa caadi aan ku qanacsanaha aniga. so waa meesha un baanaha geyna, kadibna edit mode-kan imaanaynaa Z wireframe, kadibna intaan hoose aan side weyn ugu dhigaa hal mar, kadibna control R, wax yaraan saan u qaloocinaa, wax yaroo beena. haddaba maanta wax badanaa saas geesku keeni kartaa. kadibna waxaad taabanaya control B, so mid laada kusoo dhex gelinaa oo mid laada soo gelinaa. haddaa isticmaashid control wheelkane kan dhex oo mouseka dhowr xabuu soo gelinaa kale. so kana waxaan soo sikinaynaa control B, kadibna dhexdaan isticmaalaynaa. waa kana geedkeena hoostiisana waan sameynay. so marka hal mar waxay la tahay inaan sameyno kuwa dhexe oo geesahan aadayaan sida yani qoryahaas oo kale, ma fahantay? qoryahan inaan kan kusoo laabano aan taabanaynaa edit mode-ka imaanaynaa tabka meeshaas, kadibna faceka waxaan qaadanaynaa facekan, waxaan imaanaynaa meeshan kore extrude, kadibna korkaana u jiidina. waxaad taaban kartaa S oo u yarisid. so markaasa kan ugu horeeyo, kanne waxaad taaban kartaa E by the way haddaa u baahnayn inaa meeshan imaandaan u baahnayn, waxaad taaban kartaa E shortcut waaye. so mararka qaarkood inta maad waxaa laga yaabaa inaa kala sida waqti badan kugu qaadato. so E asayd ugu fudud, kadibna S aan taabto waan yareynayaa S waan yareeyey. so geedkan aan ka fiicnay la tahay geedkii hore aan sameyn. geedkan waxaan isticmaalay object caadi aan isticmaalay, kan dhan aan inaa qabtay aan dhahay shift D aan halkaas geeyey, aan wareejiyey, aan yareeyey moogtahay saan. laakiin waxay la tahay sidaan haddadaan aan sameeyaa saaid ugu fiican.
saana saaid ugu fiican haddaa baantani mid saddexaad dhinacan kale waa ka samayn kartaa maadaama geedkan ogaaw maadana waxaan dhihi doonaa alt d maadana ku koobiya doonaa geedkan soo xoogaa waxaa fiican inaan siino detail yar oo extra soo markaas dhadid in kugu filan waa siisay kadibna taabo saddexdan koon kadibna kan hoose kadib command g ama control g kadibna baalkan hoos u dhigana hal mar perfect amaraan siina hal mar materialkiisan siinayna ama materialkan aadina dhinac materialka kadibna waxaan siinaynaa kan kood waxaan siinaynaa material waxaan iskaga bixinaynaa a maadaama a uu yahay so waxaan siinaynaa color saaid u dark roughnessna ma rabno inaan siino inuu noqdo sida miyaaradoo kale ma rabno mogtahay maadaama waa geed caleen badan uu leeyahay tusaalahaan oo kale so geedka labaad waxaan siinaynaa materialka labaadna waxaan siinaynaa cagaar caleemaha koraan rabnaa inaan siino haddaa ku nooshahay waddan oo geedahan ka baxaan saaid u yihiin madow soo geedahan ilaa saaid madow yihiin so waxaan siinaynaa material labaadaan siinaynaa material koowaad waxaan bixinaynaa magac si aan ugu fudaato 3 ayaan u bixinaa kan labaadna waxaan iskaga bixinaynaa geed maadaama geedka hoostiisa aan rabnaa mogtahay inuu noqdo soo color waxaan siinaynaa asigana saaid usii madow daarka laakiin blender ma oga ka isticmaali lahayd soo inaa imaan edit modeka aan kan kor istaagna aan taabanaynaa l materialka labaad aan imaanaynaa assign soo marka colorkan haddaan bedelno aan ka dhigan hataa blue xataa isbedelaa soo kan labaad materialka waxaan siinaynaa 3 ayaan siinaynaa soo kan hoosena waxaan siinaynaa materialka la dhaho geed sidii aan kuu sheegay edit mode imaw kadib l kadibna kadibna geedku aadi kana sidoo kale 3 a material kale geed kadibna edit mode l gate assign hadda markaa kan colorka bedelno kale aan ka dhigno color nooc kale kulligood hoos inuu ku bedelma anakan oo fiican tahay sababtoo ina shaqadu saaid noogu fududeyna soo kan ugu dambeeyo kan waxaa rabaa inuu caleemihiisa xoogaa noqdaan iftiin moogtahay soo kan inaan taabano aan siinaynaa material oo cagaar ah sidaan u eg kadibna waxaan bixinaynaa caleen kadibna mid labaad aan siinaynaa la dhaho geed edit mode aan imaanaynaa kanaan kor istaagaynaa l kadibna caleenta aan dhehnaa geedkaan dhehnaa sign soo hoosta u noqda yar madow marka geedkan taa u fiirsa dhana shift d colorkiisu weli wataa marka waxaan rabaa markasta dhana shift d inuu color goonina sii mogtahay inta imaanaynaa waxaan qaadanaynaa wax la dhaho waxaan qaadanaynaa object info markaan qaadano object info waxaan intaa taabanaynaa random kanaan rabnaa mogtahay random kan hoosaan rabnaa haddaan dhahno control shift click maanta dhan sababta control shift click u siinayo waa laga yaabaa inuu adiga ku shaqeyno inay imaataa dhinacan kor edit mode aan dhahdaa preference add-on kadibna node wrangler waa inaa furataa kan qof kastoo furo noloshaada waxaa ka dhigi doonaa easy sababtoo video kasta tutorial kasta waa la isticmaalaa haddaan dhahno shift d oo kale fiiri colorku isbedela markuusa informationkaas rabnaa anaga ku isbedbedelayo so informationkaas marka maxaan ku samayn karnaa informationka inaan qabano aan saan dhahaynaa soo jiidaynaa kadibna waxaan siinaynaa color ramp kadibna colorkan waxaan ka dhigaynaa color yara color cagaar noocaana kan waxaan ka dhigaynaa color kale haddana mid saddexaad aan soo gelinaynaa yara madowga kadibna ilaa inaad ka dhigtid constant soo si colorant isku bedbedeli karaan si hamar u fahamtid waxaan ka dhigaa coloraan oo saaid oo la dareemayo kadibna waxaan gelinaynaa meesha colorka kadibna control shift click hadda color wuxuu siinaa buluug ama cagaar ama gaduud yani casaan oo kale ma fahamtay soo ha iswado hadda kan waxaa kusoo aada buluug haddaan shift d hadda kan kale cagaar uu wataa kan kale haddana wuxuu wataa gaduud ma fahantay soo marka coloraan waxaan ka dhigaynaa oo anfacaya anaka soo waxaan ka dhigaynaa coloraan kale soo marka afartan coloraan ka dhigtay waa kuwaas aan ka bax mar meeshaan
markastaan daan shift diina color gooni noo siina bis hadda maasha Allah waa sameynay ka videogina si xadaan dhameynay geedahana magacaala iskaga bixi si ay kugu fududaato waxaa iskaga bixi kartaa geed kow control c aan dhaha magaca kadibna geed labo kanne geed saddex oo kale kanne geed afar iyo geed shan so shantooda hadda magacaala wada leeyihiin dhulka markaan meesha galgelin noo fududaa doontaa هذا فيديو كله عن دمينا إلى وين إن shift s مرة البو أسيف جريسيد so وحاس كده بحنينا low poly landscape so مال في عسكك سيف جريسو عن ديسكتوب كاسكديا كده منو عندها سيف إن شاء الله فيديو كده مسكور كده دونا إلى أنتوا حسنا وحني الله مع السلامة